soo dhawaantaas kadib sidaad la socotaan waddankan marxalado kala duwan uu soo maray waddanina haddii ka halaabdo xagga maaliyadda systemka maaliyadda ka halaabdona waddankaas wuxuu qarkiisa inuu burburo alxamdulillah waxaan isleenahay muddada yar aan u joognay wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Jubbaland waxaan soo oranahay waxyaalo badan aan soo qabanay dowladda federaalka Soomaaliya ana wasaaraddiina meelo badan ku wada shiranay ku wada kulanay waxaan u maleynaynaa sistemyada qaabka ay u socdaan waan wada socnaa inkastoo mashruuca guud waa mashruucan ku shaqeyno BFM-ka waxaan isleeyahay haddii Soomaalidu waxay ku maamahdaa labada gacmood ee qofka saliid isku bari kara Soomaaliyeed maamad waxaan isleeyahay seminaarku ulajeedada waxa weeyaan aan waxda kordhisano Soomaa maxaa ka qaldan maxaa ka saxsan adiga hadda waxa ka qaldayin anina ku saxo adiga ana hadda qaldan saxadid kadib waxaan maraa labada dhinac markay iswaafaqaan ama isfahmaan ee halka waxa ka soo bixi doona waxyaalo ama wax tayo leh oo qurux badan ayaa ka soo bixin Jubbaland maanta inaynu u hogaansano aynu noqono maamul goboleedka ee systemka maaliyadda PFM-ka dhaqan geliyay nidaamkeedina hadda sida ugu habboon u isticmaalaya maanta waxaan joognaa heer oo wasaaradaha oo dhan oo Jubbaland maanta joogaan inay miisaaniyad loo wada sameeyay muddadii 2014 markii dawladda Jubbaland wasaaradaha la dhisay waxaan u sameeynay muddo 6 bilood gudahooda system nidaam oo bisaan ah oo PFM system ah oo la dhaqan geliyay muddo gaaban sanadka dhamaadkeedana aynu soo saarnay financial statement-kii u horeysay oo loo soo bandhigay shacabka iyo ummadda Jubbaland joogta maantana waxaan fadhinaa inaynu ka hadalno nidaamka oo sidii heer federaal iyo heer maamul goboleed la isu waafajin أنا كهل لا يا مجا وزارة المالية ده إن النمادنا دولة قبلات كنا Jubbaland أنا جو جدد وين أن أسرعنا أيتهاي شركة وقدم ب last November 2015 كان كلن كي interministerial كها الويشية transfer knowledge إن السمايو sharing knowledge إن السمايو dhammaan dawlad goboleedyada Soomaaliya ay ka kooban tahay si federalism-ka uu noqdo basically mid isla jaan